بسم الله الرحمن الرحيم. aan isla fahanno farqiga u dhaxeeya mentoring iyo coaching. mentoring iyo coaching labadooda waxa ay muhiim u yihiin horumarinta shaqaalaha shirkadda, balse waxa loo adeegsadaa qaabab kala duwan. markan aan isla aragno micnahooda iyo farqiga u dhaxeeya. inta aanan qeexin mentoring, aan isla fahanno labadan eray ee ah mentor iyo mentee. haddaba qofka aqoonta iyo khibradda badan leh waxaa loo yaqaanaa mentor, halka qofka ay aqoonta iyo khibradda ay ku yar tahay ee la rabo inuu horumarka gaaro loo yaqaano mentee. si sahlan waxaan dhihi karnaa mentor waa macalinka, halka mentee uu ka yahay ardayga. haddaan markan qeexno mentoring ama hagidda, waxaan dhihi karnaa waa nidaam uu qof khibrad iyo aqoon badan leh uu ku hago kuna caawiyo qof aqoontiisa iyo khibraddiisa ay yar tahay si qofka dambe uu u gaaro heer ka sarreeya midda uu hadda joogo. haddaba ujeeddada laga leeyahay ama loo sameeyo mentoring ayaa ah in qofka aqoontiisu yar tahay laga gacan siiyo sidii uu ku gaari lahaa horumar shaqsi iyo mid shaqo intaba. oo qofka loo samaynayo hagidda ayaa la aaminsan yahay haddii uu helo garab istaag ku filan inuu horumar weyn samayn karo. muddada mentoring waa muddo dheer. qaabka aqoonta iyo khibradda loogu gudbinayo qofka aqoon raadiska ah waa in ay wada sheekaystaan qofka macalinka ah iyo ardayga. macalinkana uu la wadaago khibraddiisa, la talin uu u sameeyo iyo wixii la halmaala oo aqoontiisa ama aqoonteeda lagu kordhin karo si waxqabadka qofkaas uu sare u aado. haddaan markan ka hadalno xiriirka labada qof ee ah mentor iyo menteega, waxaa la rabaa inuu mentorku yahay qof khibrad iyo aqoon ku biirin kara ardayga ama menteega. markan aan isla aragno tusaale la xiriirta mentoring, aan dhahno cali waxa uu ku dhowaad 10 sano ka shaqaynayay waaxda suuqgeynta shirkadda, ayaa waxaa la rabaa faadumo inuu hagid iyo garab istaag u sameeyo oo ah shaqaale ku cusub kana tirsan waaxdan. haddaba cali waa mentor ama hage, halka faadumo ay ka noqonayso mentee. oo cali waxa uu hadda joogaa booskii macalinka, maadaama uu in muddo ah ka shaqaynayay waaxdan. waxa uu leeyahay aqoon iyo khibrad badan oo uu ku biirin karo faadumo si ay shaqadeeda horumar uga samayso. markana aan isla aragno qaybta labaad ee ah coaching. inta aanan qeexin coaching, aan fahanno labadan eray oo ah coach iyo coachee. haddaba qofka aqoonta iyo khibradda badan leh waxaa loo yaqaanaa coach, halka qofka aqoonta iyo khibradda ay ku yar tahay ee raba inuu horumar gaaro loo yaqaano coachee. si sahlan waxaan dhihi karnaa coach waa macalin, halka coachee uu ka yahay ardayga. markana aan isla aragno qeexidda coaching, waana marka la rabo in qof ka tirsan shaqaalaha oo hadda ku liita xirfad ama shaqo gooni ah qabashadeeda la rabo in la tababaro si uu shaqada uu hadda ku liito uu horumar uga gaaro. muddada ay soconayso tababarka ama aqoon gudbintaasna waa muddo kooban, waxaana xadidaya qofka macalinka ama tababaraha ah. waxa uuna sidoo kale jaangoynayaa nuuca aqoonta iyo qaabka loo qaadanayo. hadafka laga leeyahay coaching waa inay xoogga saarto sare u qaadidda xirfad gooni ah si loo gaaro hadaf cayiman. markana aan isla fahanno dabeecadda ama qaabka tababarka, waa aqoon kororsi ku salaysan in shaqo la qabto ama waa practical, oo aqoontaas lagu baro waxaa laga rabaa inaad dhaqan gelisid. haddaba qofka bixinaya tababarka iyo qofka la tababarayo qasab ma ahan in ay xiriir toos ah oo shaqo ay ka dhaxayso sidii aan ku soo aragnay qaybtii koowaad ee ahayd mentoring. ee waxaa lagu xushaa tababaraha aqoonta iyo khibradda uu u leeyahay waaxda ama meesha uu ka nugul yahay qofka la tababarayo. qaabka tababarka waxaa la raacayaa nidaam degsan oo lagu gaarayo hadafka markaas la leeyahay. qofka tababarka la siinayo waxaa la fiirinayaa qaabka uu shaqada u qabanayo. waxaa la siinayaa tababar ku salaysan aqoon iyo khibrad, waxaana sidoo kale la siinayaa feedback ama jawaab celin si uu u ogaado heerka uu hadda joogo.
si aan u fahanno qeexidaas aan ku soo aragnay coaching aan markan aragno tusaalahan aan dhahno aadan waxa uu dhib ku qabaa inuu meel fagaara ah ama public ah ka hadlo haddaba waxaa aadan laga gacan siinayaa sidii uu uga gudbi lahaa dhibka oo waxaa tababaraya qof khibrad ku leh xiriirka ama communication expert ah oo ka shaqeeya shirkadda haddaba waxa uu aadan helayaa aqoon iyo khibrad ku aadan sidee hadal jeedin looga sameeyaa meel fagaara ah oo waxaa la gaarsiinayaa in uu helo kalsooni iyo xirfadda looga baahan yahay si uu u sameeyo hadal jeedintaas haddaba tababarka noocaas ah ayaa waxaa loo yaqaanaa coaching gunaanad mentoring waa tababar ku salaysan muddo dheer macalinka iyo ardayga waa dad xiriir wada shaqo ay ka dhaxayso aqoonta la barayo qofka khibradda yar leh ma xadidno oo waxa ay noqon kartaa mid shaqsi ama mid shaqo intaba halka coaching ay ka tahay tababar muddadeedu ay gaaban tahay kuna salaysan shaqo oo qofka aqoonta leh waxaa lagu soo xushaa khibradda iyo aqoonta uu u leeyahay marka la joogo waaxdaas ee qasab ma ahan inay wada shaqayn toosa ka dhaxayso haddaba mentoring iyo coaching waa laba aaladood oo ay waaxda shaqada iyo shaqaalaha adeegsato si ay u horumariyaan waxqabadka shaqaalaha oo haddii uu qofka munaasib ku yahay mentoring ama coaching waxa ay ku xiran tahay in la ogaado baahida shirkadda iyo shaqaalaha oo wixii baaridaas ka soo baxo kadib ayaa la go'aamin karaa haddii uu qofkan u baahan yahay mentoring ama coaching xog dheeraada oo ku saabsan training and development fadlan ka dhigayso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo